soo dhawaada saaxiibayaal markale isku soo noqod wanaagsan maanta waxa idin wada taxanaad xiisa badan oo yarda eed show inta muuqaalkeena gudaha u koro waxaan ku xasuusinaa sidii caadiga inaan muuqaalka lana garajina kan subscribe door subscribe ku in aad baa u maasan tahay bilowga taxanaad waxaan roo baraya wiil lagu magacaabo jinsho aad buu shaqeeyay isagoo haysta laba shaqo si uu lacag ugu aruursado sababta waxa lagu la dengaa 900 milyan yunka wuxuu lacagtaas ku maalgeliyay suuqa saamiyada isagoo deen ugu qaatay xiibkii nasiib daro dhamaan saamiyada suuqa way problems dadka lacagtiisa way dhamaatay inkastoo sida ku shaqeynaa wuxuu wiilgiisa u bixin kara deynta sida weyn sida darteed wuxuu go'aansaday inuu isdilo isagoo doonay inuu ka boodo boonto isdilo laakiin silim filan tareen ayuu helay qof ayaa kunkiisa ugu soo 400 milyan taas aad ugu fajacday gaarigii weyn ayaa istaagadaashiisii waxa loo calaamaday inuu raaco gaariga wuxuuna fuulay gaariga kaasoo geebar hortiisii markuu gudaha baarka wuxuu hal warqad ku qoranta waxa laga cusub bandhiga sideedaad waxa lagu qorkaa in internet ciyaar isla markaan la siin doono lacag daqiiqad kasta halkaas uu joogo arinta xiisa la waxa inuu u baahnaa xirfad halkaas ugu jiri karo sidoo kale waxa la siin doonaa cunto halkaas uu ku joogo waqtiga markuu soo qiimaha la siinayo si kordhaysa ciyaartuna waxay dhamaan doontaa marka saacad weelkaas taal istaagto hadii jinso organ ciyaarta kale wuxuu ku xulun karaa kaarka miiska hortiisii yaala hadii kale wuxuu qaadan karaa lamin uu iska bixi karaa markii hore Johnson dadka ma lahayn ciyaarta wuxuu doon lacag iska qaato iska baxo laakiin wuxuu gartay lacagtaasi ku filay inuu ku bixiyo deynta wuxuuna garwaaqsan dhibaatooyinkiisii dib u bilaami doonaan wuxuuna go'aansaday ciyaarta galo wuxuu qaatay kaarka lambarkiisu iyo saddex wuxuuna u dhaqaaqay dhanka ciyaarta lambarkaas ayaa noqon doona qoyskiisii inta ciyaarta ay socoto markuu gudaha u galay ciyaarta wuxuu arkool aad weyn oo dhismo wuxuu la 800 kala duwan manager cadahagiisa darteed wuxuu ag dabaqa saddexaad isagoo lambarkiisu uu yahay 3 qol aad weyn oo salonkiilaya yaala dabaqa saddexaad wuxuuna ka intusiyo shaashada kaamirooyin badan CCTV manager meel u fariisto ama ku nasto wax ka qolka laa waxay dharkiisii ciyaarta buuga xeerka wuxuu akhri buurka xeerka waxa ku qornay in heli doono 100 daqiiqad kasta halkaas uu joogo wax kale waxba ku dalban karo waxa intersenka laakiin wax kasta uu dalbado waxa laga jaray qiimaha balmarintiisii waxa kale lagu yeerinaysan taaban kaamiradaha hadii ay taataan lacagtooda wala kala baraya markuu tanarka jiiso wuxuu xirtaa dharkiisii ciyaarta isla markaa ay warkan lacagtii shaashada ka muuqanaysa si joogto u kordhayso 300 daqiiqad uu bakunkiisii ku soo dhaceysay wuxuuna aad ugu farax saacada baa saddex u dhaafay sigoo faraxsan laakiin markaas uu hurdo dareemay qolka aad buu quwa sida darteed wuxuu damacay inuu dalan bacda lagu seexdo markii qiimaha loo sheegay aad buu u yaabay maxaa yeelay qiimaha wax walba halkaas aad buu u khalisnay ku adduunka yaala waxa ugu jaban waxay ahayd jariirad wuxuuna bilaw jariirad wuxuuna sidaas ku dhamaaday habeenkii si dib iyo ku dhamaaday subaxda wuxuu ku toosay buuqa dadka markuu dibad u baxo arkay dadka lambaradooda ku qoran yihiin dharkooda dadku waxay ku kala jiraan dabaqay kala duwan iyadoo loo eegay lambaradooda dadku way isku faraxsanayeen markii ay arkeen laakiin way la yaabeen sababta halkan loo keenay cid keentay waxay sidoo kale arkeen saacad weyn oo muujinaysa 3 saacadood waxayna fahmeen ciyaartii dhammaan marka saacada ay gaarto ibar waxaana halkaas yaal intersion ku dalban karaan waxay doonayaan laakiin midkood moogin qiimo ku kici doona wax walba ay dalbadaan iyagoo sidaas u fikiray lambarka 6 ee dalbana baaka sigaar markuu sigaarkii loo keeno 2 daqiiqo ayaa laga jaray waqtigiisii saacada markaasay fahmeen qiimo wax walba lagu bedesho waqti hadii uu yar lacagtuna way yaraanaysaa waxayna gaas inaysan dalban karin wax kale oo muhiim ahayn waxa ugu muhiimsan waxay inay helaan ka nadiifinta kadib markii isniifin hoos u degeen dib kale yahay qof cunto meehel marka laga reebo lambarka 8 ay sheegtay habeenkii dhan cunto loo keeno qolkooda yar ay ka cuntada intii kale way keensatay markii sidaas tir waxay fahmeen wiishka qolkooda galeen cunto oo keeno wiishkaas oo ka bilaabana dabaqa 8 kun yimaada dabaqa koowaad laakiin habeenkii lambarka 8 cuntadii qaasad darteed dadka hel cunto meesan helin marka dhamaantoodii waxay u dhaqaaqeen lambarka 8 si ay gaajada uga baxaan markii ay tageen waxay arkeen wax la yaabo qolka lambarka 8 wuxuu kan ugu raaxada badan isla markaas sida lacag u badan siin joogtaanka halkaasi laakiin lambarka wad wuxuu helay kali 100 yuun waxayna ogaadeen in adeegyada lacagaha dadka dabaq ku jira ku duwan yihiin markii taa ogaan waxay isweydiinayaan sababta u dooran waayeen lambar weyn si ay markale u kaajireen cuntada oo dhan si aysan wax kale u dalbanin dib markay ka soo baxeen markii hoos u degeen lambarka faraad aad u qeylinaya markii qeyladiisii maqlay dhamaantoodii hoos ugu degay iyaga cabsi ku jira waxayna
laakiin waqtigeer ka dhimin 15 saacadood kaliya tan waxay sababay lambarka 8 oo dalbata dhar badan in dahabiyo markii sidaas arkeen dhamaantoodu waxay naqeen sababtoo hadda waxay heli doonaan lacagta ugu badan 15 daqiiqadooda lacagta samada kaliya la bixi doonaan iyadoo isku dayis inuu jis lambarka 8 ay tiri hay sugu aan oga sida waqtiga loo kordhiyo waxay tir idinkoo dhamaantiin fuura jaranjarada waqtiga uu kordhay qofna arintaas raali kama ahayn balse halka la meejir waxayna bilaan jaranjarada fuulaan 15 daqiiqo gudahooda lambarkii koowaad ee aad u dhibtooday arintani sababta lugtiisa way dhaawacantay inkastoo 15 daqiiqo si joogto u fuuleen waqtiga waliba si saac waxayna ku siigteen is dhiibaan laakiin sila filan farxad weyn ee wajigoodii ka muuqatay sababta waxay heleen 4 saacadood dheeraad ah farxadoodii kale waxay hadda ogaadeen sida waqtiga loo kordhiyo hadda waxay qorsheen si joogto lacag badan u helaan waxayna hadda bilaan jaranjarada orda maalin kasta tani waxay siinaysaa waqti dheeraad balse habeen kasta ay daali jireen si dhibkaasi loo xil waxay isku qaybiyeen laba kooxood oo isla kooxin hal koox ordamada kale ay nasato maalintii xitan kooxda kale ay ordatan kale ay nasato saas in waqti kordhin kara iyagoo aan daalin kooxdu ku jir lambar koowaad si cad u ordi kari waayay sababta darteedii laba xubin oo kooxdiisi kamid ah lambarkii 6 iyo lambarkii 8 aad bay u sulciyeen markii sidaas aragtay lambarka labaad aad bay xumaatay waxayna go'aansatay inay orad halkii ordi lahaa lambarka koowaad tani waxay la macnaatay inay ordonto maalin kasta inay shahir doonin jiis oo lambarka 3 aad buu u murugooday xaaladda lambarka labaad wuxuu go'aansan inuu orad halkii lambarka koowaad ordi lahaa dhowr maalin kadib uu ordo lambarka labaad sidaas ay shaqadii ku wadeen markii maalmo u socday dhibaato kale ayaa timid qashinka mashquul aad buu ugu bato qoralkooda dhamaantoodii aad bay ugu markay taasi ogaadeen nambarkii koowaad wuxuu ka in qashinka mashquul dhamaantood qolkiisii la keeno sababta dii urud ugu caawin karo wuxuu rabaa in sidaas ugu caawiyo haddaba dhamaantood waxay qashinka mashquul ugu mar qolkiisii iyagoo wiiska adeegsanaya dhibaatadii waa la xalibay mid kale ayaa timid inkastoo maalinka jaranjarada fuli kara waqtiga orodka aad buu u yaraa arinta waxay dhamaantoodii ku abuurtay walaac kale intii xaaladda taagna lambar koowaad aad buu xanuunsaday wuxuuna helay weer argagax oo aad u daran markii si saarkeen way cabso waxaan u qaaday introsinkiisa daawo u dalbadaan laakiin lambarkii 6 iyo lambarka koowaad maysan ogolaan inay dadka sidaas sameeyaan sababta waxay ka baqeen in waqtiga la hel dib loo lumiyo labadan qof aad bay u naxariis darabadayneen laakiin lambarka koowaad aad bay ugu xanaaqday inkastoo gabarta dal aad bay u geesineed waxayna kala geeyay dagaalka shaniga ugu xog badan lambarka 6 si ay nolosha lambarka koowaad u badbaadiso dagaalkan weyn ee dhaxmar labadoodii inta lagu jiro dagaalka waxay dhaawacmeen dhamaadka dagaalka lambarka koowaad ee la arkay si lama filan inuu helay 40 saacadood dheeraad ah markuu fahmay in dhammaan kamerada halkaas yaar si toos u daawanayaan ciyaarta dhabta waxaana loo tusiyaa dad kale intay dadka maqlayaan waxay helayaan waqti badan waxay noqotay midaan cidna kaliya waqtiga loo heli karo inay ordaan hada dagaalkii lambarka 6 iyo lambarka labaad dadkii daawan aad bay u yaqaan dagaalkaasi sida daraatay waxay heleen waqti dheeraad ah waxayna ugu fariistay waxayna ka fariistay uma weelaan dadka maalinka daawanaya si waqti dheeraad loo helo si jooga maantoodii waxay isla gartay in qof walba uu muujinayo kartidiisii markaas dadka ay ku maweeli doonaan waxayna heli doonaan waqti dheeraad ah dhamaantoodii waxay ku heshiiyeen balse jiisu aad bay u nid sababta ma lahayn karti gaar ah si kasta waxay bilaabeen kartidooda ay muujiyaan ugu haray lambarka 7 aysan ka yiri fuundi taasoo dadkii dhammaan daalisay markaas isla wada heelnaato socdo dheeraad ah markii waqtigaasi heleen aad bay ugu farxeen waxayna go'aansan waqtigu ku filin yahay maalintaasi dadkii kale waxay kartida soo bandhigi doonaa biritoole laakiin maanta waxay loo gaaminta maalmo ay doon isii joogaan iyo inta waqti ay rabaan inay helaan sababta qofna mar inuu nasiishin halkaas ku noolaa si uu lacag u helo waxay rabaan lacagta helaan banaanka u baxaan ku raaxaystaan waxayna u dhiibeen go'aanka lambarka waad maxaa yeelay siga lacagta u yar buu helay sidoo kale wuxuu naafo wuxuu u sheegay dhabaanta ururka kaliya 1 milyan oo yoon balse wuxuu rokobsa 2500 oo yoon wuxuuna u baahan yahay kaasi joogo muddo 75 maalmood gudahooda si uu lacag u heersan dhamaantoodii waxay go'aansan inay sii joogaan 75 maalmood sababta dhamaantoodii dan ugu jirta inay sii joogaan 72 maalmood xilli macnata waqti badan si waqti intaas leeg u helaan waxayna bilaayeen ka fikiraan kartida ku muujin doonaan halkaas ku dhamaanaysa qaybtiina ku taxanihiini soo dhawaad saaxiib yaal markale maanta halkan waxa ka sii wada doona taxanihiini noo sii socodnay ayna la qadiini kood ku dhamaatay waqtigu helaan waxay bilaabeen fikiraan karti muujiyaan soo dhawaad saaxiib yaal markale maanta halkan waxa ka sii wada doona taxanihiini noo sii socodnay ayna la qadiini kood ku dhamaatay waqtigu helaan waxay bilaabeen fikiraan karti muujiyaan maalintii xigta gabar bay hees qaada balse waxay heleen kaliya 15 saacadood lambarka 6 ee muujiyo xoogiisii wuxuuna dhagaxaan
isagoo isticmaalaya xirfadiisii kartida wuxuuna waqti badan lambarka labaad ee sidoo kale jebisay dhagaxaan si isiga la mid ah balse gacanteydii aad u dhaawacantay waxay sidoo kale jebisay dhagaxaan iyo alwaax waxaynu ka 12 saacadood markii ay timi lambarka afraad waxay qaaday hees xun oo ku heshay 4 saacadood oo keliya ah markii masrax ka degaysay sida mafla u siibatay taasoo aad ugu mabistay kiidabana waxaynu ka heshay saacado dheeraad ah markaas ay jinso lambarka saddexaad marna sii daro ma lahayn wax xirfad wuxuu qaaday ciyaar aad u dhigto dadkii u mutajileen runtiisna wuxuu ka helay 12 daqiiqo keliya markii lambarkii gobol gaar wuxuu dadku maawisidii baal qosol badan dhammaan waxay ku farxeen bandhigiisii wuxuuna ka helay 3 saacadood markii lambarkii 8 la gaarkamaysan qaybkii lambadhiga kartida halka waxay qolkeedii ku xisay lambarkii 6 arinta darteedii wixii 69 saacadood haddana waxay ogaadeen si waqtiga loo kordhiyo ma jirin baahi dandarad oo dhan si waqtigu u helaan sidaa darteedii waxay go'aansaneen qashinka musqulaha lagu saaro qolka lambarkood kadibna loo cadeeyo qofkii helay codka ugu dambeeya qashinka dhammaan lagu ururin doonaa qolkiisii kahor intaysan lacdo dhammaan si toos ugu heshiiyeen u codeeyaan lambarka 8 sababtoo qolkeedii wuxuu si fudud u keedin jirtay qashinka markii codkeedii la tagtay lambarka 8 laga soo baxay waa ii didinay qabasho arintaasi waxay dadka ka carisiisay laakiin waxaan ogaanaynaa in ficilkoodii aad u kacayo kadib murankii lambarkii 8 wuxuu isku xirtay qolkeedii cuntadii la baxsatay dhammaan way agaajooday waxba ma haynin arintaas dadka ka cirisay laakiin waxba kama qaban karin gaajadii waxay gaartay heer lambarka labaad ee goosatay waqtiga meesha ay dhamayso banaanka u baxdo si ay cunto markuu siyaas arkay lambarka koowaad ee lugta qabto wuxuuna ku yiri fadlan siyaas sameynin waxaan u baahanahay 1 milyan fadlan dhowr maalmood oo kale markii jinsu arkay xaaladiisii wuxuu go'aansaday inuu xalliyo dhibka wuxuuna qaatay go'aanka qashinka dhammaan qolkiisii lagu ururiyo isla markaana u tagay raalkininka bixiya lambarka 8 lambarka afraad ee sidoo kale ku geertin Jason waxayna oggolaatay in qayb kamid ah qashinka ay qaadato kadibna waxay u tagay lambarka 8 waxayna weydiistay raalgelin ugu dambeyn dhamaantoodii cuntada ay heleen maadaama lambarka 8 markale kooxda ku soo biirtay kooxdii kale marka dib isku timid waxay loo go'aansanayeen markale dadka maawiila si waqtigoodii u kordhiyaan markan waxay sameeyeen ciyaar cusub dhamaantoodii boqor ku noqon doonaan boqorku wuxuu amar ku siin doonaa qof walba inuu qabto wuxuu doonayo haddii qof jid waxa lagu ganaaxi doonaa qori karanto horeen lambarka 8 ayaa noqotay boqoradda waxayna lambarka labaad iyo lambarka 6 ku amartay inay isdagaalaan qofna diyaar uma ahayn inuu sameeyo arintaasi laakiin wuxuu jawis in ciqaabi doonto qof kasta way ku qabso waxaana ma dagaal uu dhaxmar lambarka labaad iyo lambarka 6 halka lambarka labaad dagaalka markii hogaaminaysay laakiin gacanteeda ayaa bilowday in xanuunto taasi lambarka 6 ka faa'iideystay wuxuuna aad u garaacay ilaa uu ka sigtay inuu noqdo dilaageedii markuu arkay xaaladeedii dhammaan waxay ka qaadeen lambarka 6 waxayna go'aansanayeen mar dambe dagaal ciyaartuusan ka dhicin dhankale waxay arkeen dagaalka iskiiga ku helay 4 saacadood waxay ciyaaray muddo dheer laakiin waxa la yaabay in mar walba lambarka 1 iyo lambarka 4 ay noqonayaan boqorada labadoodii waxay dadka ku amarayeen shaqo qabtaan taasoo dadka dhib weyn u keentay lambarka 7 oo mid uu qalbinayo in wax qaldan yihiin haweenku ilaalin sanduuqa codbixinta wuxuuna lambarka 4 ku badal badalaya markuu aad buu xanaaqay laakiin cid kale uma sheegin wax kullu gudig lambarka 4 wuxuuna ku yiri haddii aad markale sidaas samayso dhammaan dadka u sheegi doonaa maalintii xitaa markii uu diiday qiyaano lambarka 4 iyo lambarka 8 maysan noqonin boqor qof kale ayaa boqor noqdo wuxuu lambarka 8 ku nolosha qabto balse way diiday markii isku dayay in loo ganaaxo korontada lambarka 6 ayaa badbaad sababtoo wuxuu noqday adeegyadeeda sababta lambarka 8 waxay la wadaagi jirtay qolkeeda adeegyada markii sidaas arkeen dhammaantoodii way la yaabeen wuxuu si cad u sheegay in siga lambarka 8 iyo lambarka 4 ay si u shaqeyn doonin waxay sameeyeen koox gaar ah waxay lambarka dabaad soo jeeday inuu ku soo biiro kooxdooda sababtoo wuxuu ogaa inuu yahay aqal badan oo waxtar leh lambarka 7 wuxuu ku biiro kooxda waxayna kooxdiisii bilaabeen dadka kala xukumaan kooxda kala xabka ma qoon karo sababtoo haddii aysan hogaansamin kooxda lambarka 8 wax cunto lama siin kooxda lambarka 8 waxay u sheegeen kooxda kale in dhammaan waqtiga kasbanaa iyaga si u shaqeyn doonaan si ciyaarta loo xiiseeyo waxay dheen qof kasta inuu kasbada laba socodkiisa u shaqeysto haddii
haddii aad kasabato 2 socod waxaa heli doontaa 3 lacagood kunis iyo cunto biyo lagu heli karo. haddii aad 1 lacag kala socoto waxaa heli doontaa biyo oo keliya. haddii aad 2 kasabto waxaa heli doontaa cunto. lambarka 7 wuxuu yiri qofkii kaalintii koowaad kale uu badbaadi doonaa. 3 qof oo kale waa la ganaaxi doonaa. 3 qof ee her waxaa lagu xiray kubadii culeyska indhahoodii waa la duubi doonaa. qofka guuleysto waxaa la siin doonaa ul ay ku garaaci doonaan qofka u doono. markay sidaas maqlay aad bay u xanaaqeen laakiin waxba kama dhihi karin. lambarka 6 ee u sheegay inaysan doortaan qaybaha jirkooda oo la xiri doono. kadibna waxay bilaabeen inay isqariyaan. lambarka 6 markuu raadinay wuxuuna bilaabay inuu si xun u garaaco. James oo lambarka 3 aad u baqay wuxuuna isku dayay miiska hoostiisa isku qariyo laakiin ku dambeyntii waa la helay. sidaas ku guuleystay ciyaarta sida xeerku ahaa. James wuxuu indhaha daboolaya wuxuuna garaacaya mid kamid ah kooxda. markuu ul ku dhufto waxay ku dhacday afka lambarka 1 si aad oo dhiig fara badan ayaa ka baxay. lambarkii 6 iyo lambarkii 8 aad bay ugu farxay arintani. James markuu indhahaas ka furo wargarintaasi wuxuuna ku xumaaday wuxuuna raaligelin ka bixiyay lambarkii 1 wuu cafiyay. dibna ciyaarta waxay 6 saacadood oo dheeraad ah si ciyaarta loo sii adkeeyo. lambarka 6 wuxuu sameeyay xeer cusub in dhamaantoodii tiro qoraan. haddii ay tirada guud ay ka yaarto 9 waxay heli doonaan lacag. haddii ay ka badato 10 wax lacag ma heli doonaan. James aad buu farxay markaas tiro buu qoray. markii isku geeyeen tirada waxay noqotay 7 sidaas darteed waxay heleen 7 lacagood. waxayna bilaabeen in lambar lacag qof walba ay u qaybiyaan. James wuxuu helo kaliya 1 lacag oo ku iibsan karo dhalooyin biyo ah. dhammaantoodii waxay ogaadeen in lambarka 6 si halka u dhibayo si dadka daaman uma weeliyo oo waqtigu ku kabsado. maalmo badan u tagay lambarka 6 iyo lambarka 8 waxay maalmo dhubkahayn kooxda kale. dhammaan waxay ka daalan sooda gaajada cadaadiska. waxayna go'aansan inaysan dulqaadan doonin cadaadiska. waxayna go'aansan meesha ka baxaan cashar u dhigaa lambarka 6 iyo lambarka 8 si uu filin qorshahoodii waxay loo kulmay qolka lambarka 1 iyagoo qorsheynaya lambarka 7 ayaa arkay qorshahooda laakiin waxba uma sheegin lambarka 6 iyo lambarka 8 wuxuuna ogaa in labadooda si khaldan u dhaqaan dadka kale. ugu dambeyn maalintii qorshaha la fulin lahaa ayaa timid. soo dhawaada saaxiibayaal markale isku soo naqad wanaagsan. maanta halkan waxaa ka siiba doona tacnaheennii noo sii socday ayna xalqadeennii labaad ku dhammaatay marka ay timid maalintii la fulin lahaa qorshaha. inta marka 1 ee qeylaan ka dhigay qolka isigoo sheegayno calwaxnun hayo. markii lambarkii 6 wuxuu arkay lambarkii 3 iyo lambarkii 2 isku qarinayay. labadoodii ay qabtay lambarkii 6 waxayna bilaabayaan inay garaacaan balse lambarkii 6 ee ka xoog badnaa labadooda. wuxuuna si fudud u garaaco dhul ku tuuray. wuxuuna soo qaatay qorigiisii korontada si uu qaabo balse nasiibna qorigiisii dab ma uusan lahayn taasoo lambarka 7 si xeeldaysan ugu saaray. ugu dambeyn kooxda James ayaa guuleysatay waxayna qabtay lambarka 6 lambarka 8 iyo lambarka 4 inkastoo ay gacanta ku dhigeen ma aysan u dhimin sida iyaga hore ugu dhibayeen. waxayna si wanaagsan ula dhaqmeen waxayna go'aansanaysan waqti ciyaarta sii kordhinin. lacagta ay heleen waxay u arkeen inay ku filan tahay. waxayna rabaa in si sharaf leh waqtigoodii u dhamaystaan oo ka baxaan meesha. lambarka 1 wuu ogolaaday laakiin weli wuxuu ka walwalsanaa sababta 1 milyan oo yom uusan dhamaysan. dhammaantoodii waxay isla go'aansadeen inay markay baxaan lacag u ururin doonaan lambarka 1 si 1 milyan u helo. markii waqtigii dhammaan lambarka 9 oo dhakhtar ahayd ayaa daryeelaysa dadkii la xiray. dhammaantoodii waxay si fudud loo cunayaan waxayna u saaxdeen. subaxdii marka ay tooseen waxa ay filinayeen inay ka baxaan meesha laakiin marka ay fiiriyeen saacadii waxayna arkeen saacadii 45 saacadood lagu daray. waxayna ogaadeen qof wuxuu sameeyay. markay aadeen dadkii la xir waxay ogaadeen in laga siibay lambarkii 8. sidoo kale cid ayaa ka ratay cidiyihii gacmaha lambarka 6 taasoo xanuun daran u keentay. arrintaasi waxa ay sababtay in waqtiga ciyaarta la kordhiyo. markay sidaasi arkeen lambarka 2 aad bay u xanaaqday waxayna go'aansatay inay si degdeg uga baxdo. markaasi qof walba ku xirtay qolkiisii si waqtigu u dhammaado si fudud. Lily waxay sii daysay lambarka 5 si ay u daryeesho dadka. waxay ogaatay in lambarka 5 aysan geesinimo lahayn wax khaldan ay sameyso laakiin lambarka 6 ayaa ka faa'iidaystay daacadnimadeedii. lambarka 5 wuxuu ku qiyaameeyay eray dilacsan wuxuuna ku yiri nambarka 2 way ku necebta waxayna rabtaa inay disho. dii aad rab inuu dhiig daato iga fur gacmahayga. lambarka 5 way rumaysatay waxayna gacmihii ka furtay taasoo qarkii qalad weyn ahayd. markii gacmihii laga fur lambarkii 6 wuxuu markiiba aflagaaday lambarka 5 kadibna dhammaan dadkii ayuu marka la qabtay. wuxuuna rabay inuu ogaado cidda ka qaaday cidihiisii balse cidna jawaab ma siinin. wuxuuna aad ugu curad wuxuu interesiinkii ka dalbaday qori
xitaa markuu qorigii u hanjiyo cidna wax ma sheegin, wuxuuna xabad ku dhuftay lugta lambarka 7. Jiisho wuxuu kula talin CCTV-ga footogada iibsado intersyonka si uu ogaado cid arrintaas samaysay. Markii CCTV-ga la arkay waxay ogaadeen inuu ahaa lambarka 1. Lambarka 1 wuxuu inuu ka arkato lambarka 6 iyo lambarka 8. sababtoo waxay ku jeesjeeseen maxaa yeelay wuxuu qof naafa ah. Lambarka 6 wuxuu arkay lambarkii 1 oo keli cidiisii ka siibin, balse uu sidoo kale ka kaashaday wejigiisii. arrintaasi ayaa lambarka 6 ka waashay. wuxuu si dhaqso u aaday lambarka 1 isigoo wata qorigiisii, laakiin intuusan dilin lambarka 8 isigiis ugu dambeysay waxayna ku weerartay qorigeedii korontada, taasoo sababtay in jaranjaradu ka dhaco. calaalihiisiina waa ay jawaankii dilin lambarka 8 mar kale dadkii qabatay. lambarka 4 ee hore uga adeegaysay. sidoo kale lambarka 5 ayaa la qabsaday sababtoo waxay ogaatay inay tahay qof aad u xisho badan, waxayna bilaabayeen inuu dadka xanuujiyaan si ay waqtigoodii u kordhiyaan. waxayna lambarkii 1 kursi ku fariisiisay, wejigiisiina biyo ku dhiishin waa ay xiraysay isan u saaxan karin. sidaasay waqti ku helaysay iyadoo dad kale u dhiibaysa lambarka 4 inuu dirjilo. markii lambarkii 4 wiimsi u dirjilo lambarkii 1, lambarkii 1 ee u sheegay inuu doonayo inuu helo 1 milyan si uu badashado qolkoodii u helo qol weyn oo la mid ah lambarka 8. wuxuuna u ballan qaaday haddii aad garab istaagto in qolka lacagtiisii ku iibin doono koona wareejin doono lambarka 8. lambarka 4 u damacday booska boqorka ayaa aqbashay, waxayna aaday lambarka 5 ku qancisin qorshe ay la wadaagto. labadoodii waxay dad kale u furteen. markii lambarkii 8 aragtay lambarka 4 oo ulkoofii kaga dhuftay madaxa weyn kana dhigtay mid miyir beelay. dadkii oo dhan waxay noqdeen xul, balse lambarka 5 ma aysan deganin, waxayna rabtay inay argudato. waxay tagtay qolka lambarka 6 waxayna qalin ku siibsisay xubintiisii taran ku goyso. kadib lambarkii 1 wuxuu bixiyay 1 milyan si uu qolka u badasho, laakiin markuu lacagtii bixiyay wuxuu in lacagtaasi ahayd qiimaha mooniyonka oo keliya. qiimaha bedelka qolka aad u qaalisnaa. markuu ogaaday lambarkii 1 aad buu u niyad jabay. lacagtii waqti dheer uu shaqaynayay wuu u lumiyay. dhammaan waxay ku xumaadeen xaaladiisii, waxayna isla gartay in si dhaqsa uga baxaa meesha. sababtoo dhammaan waxay haystaan lacag ku filisay nolol cusub ugu bilaaban dibadda. lambarkii 1 wuxuu hajookar noloshiisii caadiga ah. gabadhiisii aad bay u xanuunsanayd, wuxuuna u baahnaa lacag si uu daaweeyo. markuusan lacag helin wuxuu isku dayay inuu isdilo. markaas ayaa baabuurkii dheeraa ee limousine-ka hortiisii istaagay. siduu hore u istaagay markii Joshua uu qaaday lambarka 2 wuxuu ciyaaryahan saaxiibkeediina aad u dhaamac, waxayna u baahnayd lacag ay ku daaweyso. markaysan lacag helin doonaysa inay isdisho. kahor intaysan isdilin baabuurkii limousine-ka ayaa hor istaagay. sheekadan Joshua horeyaan u maqlay. lambarka 4 waxay rabtay inay noqoto model, balse ma aysan haysan lacag ku filan. markay ka shaqaynaysa baarkii saaxiibadii arkaan ku jeesjeesheen, kadibna waxay go'aansatay in lacag kasbato si ay nolosheedii u bedesho. baabuurkii limousine-ka sidoo kale qaaday. lambarka 5 dhakhtar ahayd ma aysan u baahnayn lacag, laakiin dad ayaa ka faa'iidaystay daacadnimadeeda. nin ayaa u sheegay inuu aad u baahan yahay lacag. markii ay siisay wuxuu si buuxda u xirkoontoonka geedii bankiga, dibna wuxuu bilaabay inuu ugu handado. taas darteedii waxay qaaday deyn badan si isaga u bixiso, taasoo ku kaliftay inay meeshan timaado. lambarka 6 wuxuu ciyaaryahan kubadda cagta ah oo aad u wanaagsan, balse dabiicadiisii xanaaqa oga kooxdiisii waa laga saaray. markii shaqo-la'aan ku dhacday ma bixin karin deyntii lagu lahaa, sidaas darteedu isna halkaas ku yimaaday. sheekada lambarka 7 wuxuu qoraa filimaan sameeyaa, laakiin agaasimayaashu weligood ma aysan jeclaan jirin sheekooyinkiisii. markuu ku daalo shaqadaas oo go'aansaday inuu ka tago, isla markiiba waxaa hortiisii istaagay baabuurkii limousine-ka meeshii keenay. dibna waxaa la gaaray sheekada lambarka 1. waxay ahayd jirtay hortiisii galeriga farshaxanka, laakiin maalin maalmaha kamid mulkiilaha galeriga farshaxanka ayaa falgaadeeyay oo shaqada ka ceriyay. waxayna rabtay in keli lacag ay kasbato si uu argudato. mulkiilaha galeriga si xun ayuu la dhaqmay, sidaas darteed baabuurkii limousine-ka ayadana meesha keenay. waxyaabaha ay wadaagaan dhammaan dadkaasi waxay in dhammaantoodii u baahnaayeen lacag. hadda markaan ogaano sheekadooda oo dhan,
waxaan kusoo laabanayna waqtiga hadda la joogo dhammaan waxay rabaan inay ka baxaan meesha balse lambarka koowaad ma uusan jeclaan go-aankaasi wuxuu qor ku qabtay dhammaantoodii sababta lambarka koowaad wuxuu doonay inuu sii joogo meesha oo lacag badan u helo wuxuuna go'aansaday in weligiisa uu shaqeeyo si waqtigu kordhiyo wuxuuna ku xiray kursiga dhammaantoodii kadibna wuxuu keligiisii bilaabay u diyaargaroobo bandhiga cusub maadaama uu ahaa joker wuxuu sameynaya bandhig aad u weyn intii lagu guda jiro wuxuuna bilaabay tariiq ku soconayo xiriga dusha sare wuxuuna dhiiritarkiisii wuxuuna ku dhacay dabka shiidna hoostiisii aad buu u xanuunsaday balse dhammaantoodii way xirnaayeen qofna ma awoodo inuu caawiyo jinso ma uusan u adkeysan karin isigoo arkayo siduu xanuunsanayo wuxuuna ku guuleystay inuu iska furo kadibna dadka kale wuu sii daayey waxayna dibeen dabkiisii isigu badbaadiyaan laakiin markay doon u dalbadaan caawinaad caafimaad waxayna arkeen waqtigii ciyaartu ku kordhay 500 oo saacadood markuu taas arkay jinsu aad buu u xanaaqay sababta wuxuu runay si degdeg ugu baxa meesha wuxuuna hal wardo meesha kaga bixi karo wuxuuna jibiyay dhammaan kaamirada CCTV-ga wuxuuna ogaa in markii dadka daawanaya aysan waxba arki karin ciyaarta iskeedii uma xirmi doonto qorshihiini wuu u shaqeeyey markii dhammaan kaamirada uu jibiyay albaabkii ciyaarta wuu furmay markii dibaddu baxeen waxayna heleen kaarka ku qornaa lacagta hesha waxaa lagu soo diri doonaa akoonkaaga taasi waxay ahayd war wanaagsan laakiin nasiib darro lambarkii koowaad wuxuu dhintay intuusan albaabka furmin waxayna ciyaarta ka baxeen sanooyin badan jinsho wuxuu abaabuliyay aaskii lambarkii koowaad dhammaan xubnihii kooxda waa ay joogeen marka laga reebo lambarkii 8aad iyo lambarkii 6aad lambarkii 6aad wuxuu u soo diray ubax wuxuuna nooshii horeyaan usii watay dhanka lambarkii 8aad waxay lacagtii ku iibsatay kantaal waxayna ku burburisay galarguu argusatay taasina waxay sababtay in xabsi la dhigo lambarkii 2aad waxay lacag u adeegsatay in lagu daaweeyo saaxiibkeeda iyo gabadhii lambarkii koowaad markuu arkay jinso sidii noloshoodii muhiim u noqotay jinso wuxuu go'aansaday inuu si wax wanaagsan sameeyo qaybtii ugu dambeysay taxniheeni waxaana la tusiyaa lambarkii 7aad oo noqday qoraa wuxuuna qoraya screen play la yiraahdo The 8 Show taasi micnaheedu uu sheekadii ay wada mareen wuxuuna ku qoraya dhammaan wuxuu kula kulmay wuxuu u dulqaatay The 8 Show taxnahaasi aad buu xiiso badanaa agaasimi wuxuu yiri waxaan dareemay dhab ahaantii ciyaartaasi qayb ka ahayd lambarkii 7aad aad buu u naxay hadalkaasi laakiin wuxuu ku jawaabay maya tani keli waa sheeko dhibaatooyinkiisii way dhammaadeen taxniheeni halkaasi uu ku dhammaaday dii halkaa nala soo gaartay aad iyo aad baan u mahadsantahay daawade waxaan isku dayi doonaa inaan soo khalaasiyano taxano kale aad u xiiso badan waxaan kaa codsanaa muuqaalka lana garashina kan subscribe dhahdo subscribe weyn aad iyo aad baan u mahadsantahay daawade